ciidamada Jubbaland ayaa lagu soo waramayaa in ay la wareegeen qayb ka mid ah magaalada Mandheera ee ismaamulka Wajeer halkaas oo laga soo warinayo in ay gudaha u galeen deegaano qaar oo ka tirsan ismaamulkaasi. wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya halkaas ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada. wararka ka imaanaya gudaha magaalada Mandheera ee dhinaca wadanka Kenya iyo sidoo kale xuduudda Soomaaliya waxay ku soo waramayaan in ciidan ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland ay gudaha u galeen halkaas oo laga soo warinayo in dadkii shacabka ahaa ee qaybtood ku sugnaa ay ka baxeen meelihii ciidamadu ay la wareegeen. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee wadanka Kenya ayaa xaqiijiyay in ciidamada Jubbaland kala bar ay haystaan magaalada Mandheera taas oo dadka shacabka ah oo ku tilmaamay inay yihiin dad wanaagsan laakiin siyaasiyiintooda ay yihiin dad u dhuundaleela arrimaha Kenya si gaar ahna taageero buuxda ugu ah madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto. taasi bedelkeedna aysan arkin waxa uu ku tilmaamay ciidamo shisheeye oo ka tagay gudaha Soomaaliya si gaar ah ciidamada maamulka Jubbaland oo uu tilmaamay in 3 meelood 2 meel ay ka haystaan ciidamada Jubbaland gudaha magaalada Mandheera ee wadanka Kenya gaar ahaan magaala xuduudeedka Soomaaliya iyo Kenya. wararka ayaa sheegaya in ciidamadan maalmihii la soo dhaafayba ay wadeen dhaqdhaqaaq ciidan oo ay doonayeen inay gudaha ugu galaan magaalada Mandheera. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dawladda Kenya lama oga waxa uu ku sababeeyay laakiin waxa uu tilmaamay waraysi uu bixiyay in siyaasiyiinta Soomaalida ee Mandheera ka soo jeeda ay dhammaantood yihiin siyaasiyiin aanan arkin xaaladda ka taagan deegaanka sidoo kalena ay arkaan kaliya mucaaradka iyo cid ay u arkaan inay lid ku tahay dawladdu inay meesha ka saaraan. madaxweyne ku-xigeenkii hore waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in Soomaaliya dhinaceedu ay ka yimaadeen ciidan tirabeel ah oo maamulka Jubbaland ka tirsan sidoo kalena ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Mandheera loona baahan yahay in shacabka la difaaco intii ay mucaarad ku noqon lahaayeen dad dawladda ka tirsan oo waliba howlahooda iska sii wata. sidani oo kale horay waxa uu u jeediyay khudbado kala duwan oo uu ku dhaleeceynayay dadka Soomaaliyeed si gaar ah ciidamada maamulka Jubbaland oo uu tilmaamay inay gabadfallo ka geystaan magaalada Mandheera iyo sidoo kale magaalooyinka xuduudda ah ee labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya. lama oga hadalka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dawladda Kenya in uu sax yahay iyo in kale laakiin waxay u muuqataa in ciidamadii ku sugnaa maamulka Jubbaland qaybtood ay gudaha u galeen Mandheera kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dagaal xoogan ay kula galeen duleedka degmada Beled Xaabo ee gobolka Gedo taasi oo bilo ka hor ka dhacday deegaan lagu magacaabo Tuulo Amiin oo kamid ah kuwa hoostaga degmada Beled Xaabo ee gobolka Gedo. qaarkood ayaa la tilmaamay inay ka talaabeen xadka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya iyo gudaha ay u galeen magaalada Mandheera taasi ugu dambeyn dadka deegaanka ku qasabtay inay banaanbax sameeyaan oo halkaas habeenada qaar waxa ku soo dhacay hoobiyayaal la sheegay in ciidanka dawladda ay ridayeen oo guryaha shacabka ku dhacay iyaga oo doonay inay beegsadaan ciidamada maamulka Jubbaland laakiin ma aysan dhicin waxaana la warinayaa ciidamadii Jubbaland ee halkaas ku sugnaa in dadka shacabka ah ay cabasho ka keeneen ugu dambeynna loo wareejiyay dhinaca xuduudda Itoobiya iyo sidoo kale gobolka Gedo halkaas oo hadda ay ku sugan yihiin gaar ahaan tuulo ama deegaan lagu magacaabo Suufka oo ah saddex xagal xiriiriya saddexda wadan ee Kenya, Itoobiya iyo Soomaaliya. waxaa halkaas la sheegayaa inay kula sugan yihiin wasiirka amniga gudaha dawlad goboleedka Jubbaland Yuusuf Xuseen Dhuumaal, madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dawlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno kale oo saraakiil ah oo ciidamada Itoobiya ka tirsan iyo kuwa maamulka Jubbaland ka tirsan. waxaa halkaas inta ay ku sugnaayeen la tilmaamay inay ka soo goosteen cutub ciidan oo ka tirsan isla maamulka Jubbaland oo daraawiishta ka tirsanaa kuwaas oo tagay magaalada Beled Xaabo ee gobolka Gedo sidoo kalena halkaas u tagay in ay ku biiraan ciidanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. waa taliyaha xasilinta Jubbooyinka iyo gobolka Gedo Cabdirashiid Jaran ayaana halkaas ku soo dhaweeyay ciidankii halkaas gaaray qaybtood waxaa la sheegay in dib loogu fasaxay xuquuqdii ay lahaayeen kadib in muddo ah oo ay xuquuq la'aan ku ahaayeen ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland. waxaa la warinayaa xaaladdu hadda inay tahay mid degan laakiin Jubbaland ay qorsheynayso abaabul dagaal oo ka dhana ciidamada dawladda ee ku sugan magaalada Beled Xaabo ee gobolka Gedo iyo deegaanada kale ee Jubbaland. dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadii halkaas ku sugnaa iyagana waxaa la warinayaa feejignaan dheeraad ah ay ku jiraan oo cid walba oo halkaas falal amni darro ka sameysana ay gacan bir ah ku qaban doonaan. waxaa hadda soo baxaya amaro looga mamnuucay magaalada Beled Xaabo iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland in shareerka hubka micna darrada ah ee aan laga warqabin ilaamaha ammaanka marka laga reebo cid kale aanan hub lagu arki karin iyo arrimo kale oo dhowr ah oo shuruucda xilligan la soo saaray iyo sidoo kale waxyaabaha la mamnuucay ku jira.
lama oga xilliga Jubbaland cusub laga dhisi doono magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo, taasi oo micnaheedu tahay in Jubbaland cusub laga dhisayo gobolka Gedo kadib markii la qaadacay doorashadii Axmed Madoobe uu ku soo baxay ee ka dhacday magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Jubbaland dhinaca kalena ah xarunta gobolka Jubbada Hoose. ilaa iyo hadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya warcad kama soo bixin oo ku aadan sida iyo qaabka loo qaban doono doorashada cusub ee Jubbaland cusub ee laga dhisayo gobolka Gedo. Jubbaland cusub ma waxay ku koobnaan doontaa kaliya gobolka Gedo ama waxay aadi doontaa dhinaca Jubbooyinka si gaar ah Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe oo qayb ka mid ah ay ku sugan yihiin dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Axmed Madoobe waxaa la warinayaa in uu abaabulayo ciidan xoogan oo deegaanada Jubbooyinka ah si gaar ah gobolka Jubbada Hoose oo inta badan gacanta ugu jirta ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland. Gobolka Gedo qayb ka mid ah isla ciidamada Jubbaland ayaa ku sugan si gaar ah Doolow iyo deegaano kale oo waa ku teedsan kuwaas oo la filayo in saraakiil ciidamo Etoobiyaan ah iyo kuwa kale oo Jubbaland ka socdaba ay gaaraan saacadaha soo socda.